garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu xanibay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku wajahna magaalada Kismaayo iyadoo loo diiday inay u duulaan halkaasi. Sheekh Shariif iyo wafdiga uu hogaaminaya ayaa maanta u ambabixi lahaa magaalada Kismaayo halkaasi uu doonayay in uu uga qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo dhowaan dib loo doortay. sarkaal ka tirsan xisbiga himilo qaran oo la hadlayay warbaahinta dalsan ee magaalada muqdisho ayaa u sheegay in ay sax tahay in Sheekh Shariif la xanibay balse uusan garoonka tagin kaliya loo diiday diyaaradiisii markii la ogolaaday inuu u duulo Kismaayo. Sheekh Shariif gurigiisa ayuu joogaa laakiin waa run in diyaaradda la xanibay ayuu yiri sarkaal ka tirsan himilo qaran oo la hadlayay warbaahinta dalsan. dhowaan ayay eed markii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada sare ee Soomaaliya ay ku amartay diyaaradaha aada iyo kuwa ka yimaada magaalada Kismaayo inay soo maraan garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. dhinaca kale hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ee SCAA ayaa maanta shirkadda diyaaradaha ku amartay in 24 saac ka hor ay soo dalbadaan fasaxa ah in ay u duuli karaan magaalada Kismaayo. si kastaba magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan ay ka dhacdo caleemasaarka xafladda madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoo ay ka qayb galayaan sida uu qorshe yahay madax kala duwan oo lagu casuumay.